laakiin waxay noo wada hadduu ilaahay raalli ka noqdo program baa noo wadaa. Programkaas wuxuu ku saabsan yahay hadda saad wada ogsoon tihiinba magaalada Hargeysa waxaa ka socda koobka gobolada. Marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaan koobka gobolada ka yarfaaloodo iyo sidii macnaha ay isku aadka usoo dhamaadeen group stage usoo dhamaado kale inaan ka yarfaaloodo rabaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Qof kasta fikirkiisa kusoo dhiiban kara waxaa comment iyo reebi karaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo garanaysaa. Markaas xabta waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad baa kusoo dhawaada mataanka official. Aad baan iyagu mahadcelinaya sida quruxda badan leh channelkayga ugu soo qurquraysan garanaysaa. Inoo bilaab haddaba waxaan rajeynayaa haddeer maanta inaan ka yarfaaloodo xaggaas iyo waxaan tegaynaa Soomaaliland. Horta Soomaaliland qof kasta uu ogsoon yahay dadka sportka daawada badankood waxaa ka socda koob kubadda cagta ah oo ciyaarayaan gobolada dhammaan Somaliland wada ciyaarayaan 14 gobol ee Somaliland. Waxaa la bilaabay adoo imika 7 ka hor baa la bilaabay saan rajeynayo. Hadda isku aadkii group stage waa soo dhamaadeen. Hadda waxa isku soo haray waa 8 gobol. Waxa harayna waa 6 gobol. Markaas sida group stage kala hayeen iyo waxaan insha Allah waan tusi doonaa halkan shaashada soo dhigi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Wax walbana diina ku arki doontaan. Gobolna wuxuu ahaa 4 kooxood, groupna waxay ahaayeen 3 kooxood. Labada group A iyo group B waxay kala ahaayeen 4 kooxood, halka group C iyo group D ay ahaayeen 3 kooxood. Maxaa markii la isku aadinayay saasay nasiibku koox kasta ugu soo baxay. Marka haddeer bal waxaan eegaynaa group-yadii ugu adkaa iyo sidii markaa loo soo kala baxay hadduu ilaahay raalli ka noqdo baan fiirinaynaa. Bal hadda halkuu marayaan waan eegi doonaa sida uu koobka u kala socdana insha Allah waan la socodsiin doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Inkastoo berito hore xitaa la ciyaarayo 8 dhamaadka koox laga badiyay knockout koox laga badiyay 4 tagays semi-final. Marka waxaan eegaynaa hadduu la idmo sida ay wax u kala socdeen. Marka hore group-yada waxaa lagu bilaabay halkan aan inaga tusi doonaa yar sugaa okay. Marka hore group-yada waxay ahaayeen group A iyo group B iyo group C iyo group D bay ahaayeen 4 group bay kala ahaayeen. Marka group A iyo group B iyo waxaas oo dhan waa idin sheegi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Sida ay inta ka soo baxday imika tusaale ahaan group A oo kale waxaa ka soo baxday Hawd iyo Madow Jeex, halka group B na ay ka soo baxeen Daadmeer iyo Haysiimo. Group C na waxaa ka soo baxay Gabiley iyo Sool, halka group D na ay ka soo baxeen waxaa ka soo baxay group D na Awdal iyo Baran. saas oo arinku ahaa. Markaas asxaabta waxaa leeyahay hada reerada waxaa soo baxay 8 gobol ama 8 kooxood sababta qaantiinba. Marka 8 kooxood waxa la iskugu aadiyay waa quarter finalka. Waxa la iskugu aadiyay markaas ciyaadkooda wax wada ciyaari doona Hawd iyo Baran. Bal Hawd iyo Baran ciyaartoodana waan daawanay. Hawd iyo Baran waliba maanta inay ciyaaraan ma rajeynaya isla maantadan inay ciyaaraan ma rajeynaya haddeer dhowaan ay soo galayaan adii ilaa iyo 30 daqiiqo ka bacdi soo galaysa Hawd iyo Baran. Cida badan doontana insha Allah ogaan doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Bal soo saadaalintiina idinkana soo dhiibta waa Hawd iyo Baran taasi. ciyaarta labaad ku xigtana waxa weeye Awdal iyo Madow Jeex. gobolka Awdal iyo gobolka Madow Jeex baa ciyaarta wada ciyaar doona. halka ciyaarta saddexaad ay wada ciyaari doonaan Daadmeer iyo Sool. ma moodo group-yada in ay inkastoo group-yada qaarna adag in group-yada qaarna ee kooxaha qaarna isku adkay adag in kooxaha qaarna aysan xoga adkay. hadda ma kala dhacaan laakiin Hawd oo kale waxaad moodo Baran keer adag tahay si marka loo eego. marka Awdal iyo Madow Jeex waa hal ciyaarta kaliya la wada sugay Awdal iyo Madow Jeex sababtoo ah wali Awdal ciyaar laga soo badin intii ciyaarada ciyaareen way soo badiyeen halka Madow Jeex hal ciyaar kaliya laga soo badiyay. Daadmeer iyo Sool labadaasna waa isku dhaceen. Daadmeer ciyaarta ugu dambeysay waa tii soo badinaysay halka kuwan kale Soolna ciyaarta ugu dambeysay waa badiyeen. laakiin Gabiley iyo Haysiimo ayagana isku aaday. Gabiley waa adag tahay Haysiimona kulay
ma xumo ciyaarteeda ma xumo laakiin Gabley iyo xaysiimo marka loo eego waxaad moodaa Gabley inay adag tahay laakiin ciyaarta keliya ee El Clasico ah ee la wada sugay indhaha lagu wada hayo haddii ilaahay halka noqdo Awdal iyo Maroodijeex sababtoo ah Awdalna waa koox adag Maroodijeexna waa koox adag sababtoo Awdal weli hal ciyaar lagama badin moogtahay inkastoo Maroodijeex laga badiyay hal ciyaar laba ciyaarood ay badisay ciyaartii ugu dambeysay ay ka badinaysay Bohole halka ay kaga badinaysay 4-2 saasay ahayd arrinku halkaas kala marayaa iminka bal waxaan eegaynaa sida 8 kooxood ee la iskugu aadiyay iyada isleedahay soo bixi doonaa ma Awdal iyo Badhan Awdal iyo Hawd iyo Badhan yaa isleedahay soo bixi karaan Maroodijeex iyo Awdal yaa isleedahay soo bixi karaan kulli fikirkiina waa noo muhiim waxaa commentka noogu reeba aad iyo aadna u mahadsantihiin midda kale waxaan idin sheegaya horta niyo Somaliland waxa ka socda ciyaaraha hadda idinka sheekeynayo si qurux badan oo ugu socdaan oo wanaagsan oo maaragtay waxaad moodaaba in aan hadda ciyaaraha Soomaalida dadka Soomaalida maamulde dadkeen Soomaalida hadda ciyaaraha korba u soo qaadin sida ani macnaha aan ka muuqdo sababtoo awal lama arki jirin gobolada marka la ciyaarayo kala qof kasta inta wadanka joogtan ba arki jirtay laakiin hadda xigta live baa la soo galayaa toos baa u daawanaysaa TV ama meesha doonta ka daawo imkaanu halkan aan joogaa intii ciyaaradna waan daawo har ciyaarna meesha dhaafin ma garan sababtaas wax taas noo dhib yareeyay dadkan wadankii jooga sida home cable TV iyo Samtel iyo dadkaasa ma garanaysaa ka dambeeyay inaan ciyaaraha inoo xagaas ka joognaa qof kasta sariirtiisa ka jiifano daawada taas mid dawa horumar aan macnaha gaarin ma garanaysaa dan Somaliland marka waxaan leeyahay Soomaaliya xitaa sidoo kale iyadana waxaan rajeynaynaa inay ciyaaraha marka gobolada ay bilaabmayaan inay soo daayaan sida Somaliland u soo daayaan kale haddeer Hawd baa soo gala rabtaa ciyaarta Hawd iyo Badhan wala wada sugaya kulli anigu saadaaladan ka bixiyo kulli saan isleeyahay Hawd baa badanaysa laakiin saadaaladan ka bixiyo xitaa waxaan dhigi karaa Hawd baa waxay ku badanaysaa 2-3 ama 2-1 saas aan isleeyahay anigu laakiin ciyaarta Maroodijeex iyo Awdal waa ciyaarta kaliya la wada sugay Maroodijeex iyo Awdal marka waxaan sugaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo ciyaarahaas maanta dhacay haddeer waxaan si runbal aad asxaabtaada weer gudbisid aad iyo aad waan idin salaamayaa sida quruxda badan ee channelkayga ugu jirtaan waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin midda kale isku daya inaad channelkayga sii share gareysaan asxaabta u dirtaan halkaan idin soo dhigi doona wax walba halka Awdal iyo Badhan iyo wax walba maanta ciyaaro soo jiraan halkaan idin soo dhigi doona sala isku aadiin halkaan ka arki doontaan insha Allah dinaa karim asxaabta waxaan leeyahay kulli idinkuna dee xaggina macnaha ka daalin comment hadday noqoto like hadday noqoto iyo weliba subscribe aad baan u mahadsantihiin waxaan leeyahay maalin waxaan sababtoo hadda waan degdegsana waxaan ku degdegsana inaan soo daawada inaan daawada rabaa Hawd iyo Badhan Hawd gobolka Hawd iyo weliba gobolka Badhan ma rabaa inaan daawado Hawdna wuxuu ku jiraa gobolada weli aan laga badin halka ciyaartii koowaad ay baraajada u baxeen gobolka Sool gobolka Bohole gobolka Bohole baraajada loo galeen ciyaartii labaadna waa ku badinayay halka ciyaartii saddexaadna imikaabay ay soo badiyeen laba ciyaarood bis ku soo badiyeen ciyaarna baraajada 7 dhibcood bay ku hogaaminayeen groupkooda halka Maroodijeexna ay ku hogaaminaysa 6 dhibcood sababtoo hal ciyaar ay loo soo gareysay Awdalna sidoo kale iyada groupkeeda hogaaminaysa hal ciyaar laga badin saas ay markaa groupkeeda kor ugu baxday marka dad meel iyo Sool baan sugaynaa iyo weliba Gabley iyo xaysiimo asxaabta dhamaantood waxaan leeyahay sportigu waa horumar sportigu waa loo baahan yahay sportigu waa isdhexgalka dhalinyarada waxaad laga yaabaa qof aan aqoonin oo magaciisa maqleysid inaad ku arkaan sportiga berika maalina dee aad asxaab noqotaan ama aad garanaysaa isku soo dhawaataan oo dad markaa asxaab lillahi noqotaan sababtoo kubaddu waa caafimaad kubaddu waxay kaa jeedinaysaa ama sportigan yiraahday waxay kaa jeedinaysaa badwada fara badan sportigani wuxuu naga hayaa balwado fara badan nooc walba ahaadaan soo markaa isku daya dhalinyarada inay idinkan ku dadaashaan xagga sportiga waa muhiim waana caafimaad marka si loo eego xataa waxaan leeyahay asxaabta dhammaantiin horta aad iyo aad baa idin salaamaya kusoo dhawaada marlabaad iyo martaxaad channelkii mataan koofishiyaal please sii share gareeya aad iyo aad u mahadsantihiin sidaas iyo nabadiina aad baa idin salaamaya dhammaantiin